kulanti wacan oo wanaagsan mar kale akhyaarta ku taxan sheekada curad waxaad ku soo dhawaataan qaybtii lixaad ee sheekadii uu qoraha ugu magac daray curad waxaana qoray saaxiibkeen Maahir Jaamacadan waa maalintii 11aad ee aan ka soo maqanahay gurigeyga dhinaca kale waa maalintii saddexaad ee aan ka warsugayo walaalkay jooga UK ee aan u qaylo dhaandirsaday waxaan leeyahay rajo badan oo ah inaan xal u helo arrimaha noloshayda hareeyay waxaase dhacday arrin nasiib darro ah laakiin noqon karta soo dhaweynta gabagabada qisada salaad wuxuu ku guul dareysay inuu fuliyo ballankeeni labadeena waxaanu isku ogeen inuusan cidna ugu waramin halka aan joogo ama aan ku noolahay oo ah goobta uu isagu isiiyay ama igeeyay taasna ma uusan ka soo bixin wuxuu xogteedii uu la wadaagay xaaskiisa oo warkii u sii gudbisay walaashay Sahra iyana Sahra u sii gudbisay xaafadii oo dhan xogteeda waa laga hayaa waxaan hubaala in la igu soo maqan yahay anigoo warmooga laakiin waxa kaliya ee aan ilaawi doonin ayaa sida wanaagsan ee uu Salaad isaga ka xil saaray sida la socoshada xaaladeyda halka uu idajiyay inta aan ku noolaa waxaan ka nasay odaygii iyo gabadhii yareed ee salfaday xasiloonidii nafteyda arrintaasi waxay ii saamaxday inaan helo fursad aan si degan ugu lado noloshayda ma garanayo sababta aan labadaasi uga arkay kaliya agagaarka xaafadeyda iyo gudaha qolkayga maxaan uga arki waayay halkan subax Arbaca oo intaan aroor hore toosay haddana aan isleeyahay maanta ayuu kula soo hadlayaa walaalka aad ka sugayso inuu xal kuu keeno waliba aan isaga cadiyeenayo xilligaasi barxadda hoyga aan deganahay ku taala ayaa waxa soo galay 3 nin oo wata walaalkay Maxamuud iyo Salaad oo wajigiisa xishood iyo cara ay buuxiyeen waxa goobtii la iga garbad duubay anigoo xidhan waliba neefta aan si dhib badan ku qaadanayo Salaadna waxa haysata dacwada inuu nin xanuunsan oo ka soo cararay dadkiisii iyo in la daweeyo uu isagu meel ku qariyay oo hadalba uma furna Salaad laakiin anigu markaasi si ka sii daran Maxamuud ayaan u nacay Salaad sida la ii soo waday ayaa la ii keenay xaafadii oo dad badan ay hordhoobay yihiin ma ahayn kuwa i soo dhaweynaya dadkan ee waxay ahaayeen kuwa iga wiirsanaya oo daawashadeeda iyo madadaalo iga dhiganaya waxaan xilligaasi arkayay gabadhii aan ugu yeeri jiray qalbigayga oo iyadoo mara afka ku haysata iga soo dhex eegaysa dadka dhexdooda aad baan ugu xiiso qabay arageeda 24 saacadood ayaan ruuxna la ii ogolaan in uu ii soo galo anigoo ku xiran qolkaygii kaliya gabadha cunnada ii keenaysa ayaa iyadoo cabsanaysa ii soo dhigta cuntada meel ii dhow saacadaasi ayaa ahaa kuwii ugu badnaa ee aan arko odaygii iyo gabadhii iswatay haba ugu darnaatee gabadha ma jirto halgan ka culus kan aan sameeyay saacadahaasi kooban ee aan weligay soo sameynayay waayo waxaan beeniyay wax kasta oo ii muuqday waxaan ka doorbiday inaan arko wax kasta oo iga dahsoon sida qorshuhu uu yahay biri waxa la igula kalahi doonaa xarunta cilaajka waxaana isii kaxayn doona Maxamuud maamada iyo dad badan oo ehel ah kuwaasi oo ka warhelay xaaladeyda waxaana dadkaasi ku jireen in oday ah oo qoyska ugu beegan adeer guudkaasi oo ay wada hadleen walaalkaygii maqnaa ee aan u qaylo dhaandirsaday waana nin oday ah oo arrimaha qoyska dusha kala socda waxa la soo gaaray xilligii ay qisadayda macna samayn lahayd waxa iskeenay waqtigii ay iscadeyn lahayd qisada mugdiga ah ee qof waliba oo wax yar uu ka og yahay wax badanna way ka maqan yihiin aniga ayaa doonaya inaan biri noqdo furaha qisadan oo waxaan saaminayaa halka ay ka imaanayaan waxaan dhacaya oo dhan waa kuma abwaanka iyo curiye shirqoolkan gudcur ka dhigay noloshayda haddaba si aan u helo xaqiiqda waa inaan biri ka dhiga xarunta cilaajka meel xamaasad leh oo dadkii wada socday ay dib isu wada eegaan habeen iyo maalin mid la taagan yahay ma garanayo laakiin waxaan sugayaa kaliya in iridaasi la furo kadibna la ii kaxeeyo xaruntii la ii waday waxaan joojiyay cabsi iyadoo ay ii muuqanayaan odaygii iyo gabadhii wada socday waxaan daayay walaa iyadoo aan ogahay halka la ii wado
waxa iga soo hartay geesinimo aan iritani umaada dhalan. La soco qaybta 7 ee sheekadii curad.